السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan caawa soo booqanay caasimadda Garowe beerta quruxda badan ee loo tago daawashada ee Sabco waxay ku taalaa koonaha bariga magaalada Garowe waa xarun aad u qurux badan ee daawashada ku fiican. Booqashadaas kadib markuu waagu bariyay waxaanu ka baxnay magaalada Garowe waxaan ku sii jeednaa galbeedka dambe ee Soomaaliya. safarka yowdul badan buu sii maraya laamiga dheer baanu qaadaynaa waxaana naga leexan doonaa magaalada cagaaran waxaan sii mari doonaa Bursaalax waxaan tagi doonaa haddii Ilaahay qadaro Guldogob degmada Guldogob intaa kadib waxaan sii gaari doonaa baadiyo fog oo raxmadaysan oo geel joogo oo qurux badan nala socda. waxaan wali ku jirnaa safarka iyagii quruxda badnaa halkan hadda aanu marayno waxaan ka soo leexanay Haman Beeraad baan maraynaa magaalada Beero markaan gaarnaano leexan doonaa halkan waa Bursaalax hadda aan soo gaarnay waa degmada Bursaalax meeshaan aan joogno degmo aad u qurux badan dhisantay ay ka muuqato populationkeeda laakiin halka dhib jira waxay tahay yar xoogaa abaarta deegaanka ka muuqata laakiin waa deegaan aad u qurux badan la hormariyay intii tabara qurux badan ay ka muuqato waana ku faraxsanahay inaan soo gaaro yar xoogaa abaartaas ka jirta mooyaane sideeda kale alxamdulillaah rabbil caalamiin dabaysha yar baa kacayso abaarta awgeed ah waanu ka soo tagnay halkaan hadda aan marayno safarkayo meelo badan buu marayaa halkaan aan maraynaaye waduleedka Xero Jaalle waxaan ku soconnaa Xero Jaalle si aanu Guldogob u gaarno wali safarkayagii waxaan ku jirnaa dalxiiska ahaa la socod wanaagsan xantiya dhalaalsan dayaha ku arka dhambalsan dankaad dhufata idhiibsan jacayl dhadhabiyo dhawaaqsan hadda aan ku dhiibay dhowrsan dhadhami kalgacayl ka dha'ansan mudumanay kuma taalan dheehsan hodmanay dhaxantiya dhalaalsan dayaha ku arka dhambalsan dankaad dhufata idhiibsan jacayl dhadhabiyo dhawaaqsan hadda aan ku dhiibay dhowrsan dhadhami kalgacayl ka dha'ansan mar kale ayaanu dib u soo noqonay halkaan hadda aanu maraynaa waduleedka deegaanka Isqambuus safarka iyagu wuxuu qaadan doonaa 4 ilaa 5 maalin waa afafka hore deegaanka Isqambuus laga galo halkaan tanana waa afafka hore ee deegaanka Qansaxle aanu hadda soo gaarnay wixii ka dambeeyay waxaan tagi doonaa Guldogob oo nooca ku balansanahay inaan qaaci ku tumano iyadana way idin soo gudbin doonaa haddii Ilaahay qadaro la socod wanaagsan
soconay hadda waxaanu maraynaa kasoo kalahnay degmada Galdogob waxaan soo aadnay halkaan roobka laga soo galaa wada aragtaa dhulku waxa waa green aroortii waxaan ku soconaa halkii xaruntii geele aanu safarka iyagu ahaa wada deegaanka Soomaalida gobolka Doolo barigiisa area leerada Qaafa Qariis Buurdhudu Baxdo dhul badan baan mari doonaa haddii la hayd ma waxaan filayaa barnaamijkan aanu diyaarinayno kolley maalin iyo laba laguma soo koobi karo laakiin qayb baan soo gudbin doonaa markaas safarka iyagu wuxuu ka bilaabanayaa duleedka Bale Soofe iyo Dhagafur u dhaxaysay bari saacada 3 geesoodka u dhaxeeya geel jooga ayay nirigu ka jabtay waxaan sameyn doonaa inaanu booqano nirigtaas oo in dhakhtar nala socdo bal nirig jabtay oo aan doonayno inaan kabno waatan nirigtii garow aan uga soo baxnay safarkeeda inaanu dhakhtar kiyaan wadnay kabi lahaayeen naloo soo sheegay hadda waxaan la joognaa geeli waan soo gaarnay si aan ula tacaalno xaaladda nirigta nirigta idin muuqata u jeedaan lugta hore un bay ka jabtay si kastaba ha ku noqotee kani waa risi qooqan oo geela ku jira sida la sheegayna waa dad cun nimadu وحلقان وغانيين هفلي أنا روا ساكن يوسع عم بحركتي ilaalinayay waxaan lahaa istu ku hay ul inta qaatay marka qaybta labaad ee barnaamijka hadii la qadaro baan idin soo gudbin doonaa aad iyo aad baad mahadsantahay